Govinda ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraallo badan oo ku eedeynayo in si qaab daran ay ula dhaqmeen kooxda Jasos ee uu ugu horeeyo filim sameeye Anurag Basu. Haddaba Ranbir ayaa u jawaab celiyay Govinda marka qof uu wax walba uu ka soo tago in uu filimkaaga waqti wanaagsan siiyo waa in uu helaa waxa laga ballan qaaday. Ranbir Kapoor ayaana eeda dusha ka saaray filim sameeye Anurag oo Govinda ula dhaqmay si cadaalad darro. Ranbir oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri run ahaantii doorkiisii dhan waa laga jaray filimka. Ugu horeyn filimka waxaana bilownay annaga oo aan dhammaynin sheekada, wax walbana waa la bedelay. Filimkana waqti badan ayuu nagu qaatay, waana mas'uuliyad darro oo aan ku sameynay halyey Govinda oo si cadaalad ah doorkiisii u sameeyay. Waana ka xunnahay sida filimkan looga bixiyay, waana ka raali gelinaynaa, laakiin wax fiican ayay ahayd in doorkan aan jarnay bannaanka uu soo baxo. Haddaba waxaa la sugayaa jawaabta uu Govinda ka soo bixin doono raaligelinta Ranbir ka soo bixiyay, isagoo tilmaamay in uu ka xun yahay sida Anurag iyo kooxda filimka Jasos ula dhaqmeen Govinda. Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii. Hamuugaanina in aad subscribe dhahdaan Saxafi Films Channel, like and share. fikirkiina waxaad noogu reebi kartaan qaybta hoose ee comment.